waxayna sheegtay in ay magaalada Laascaanood sifeed doonto digniinahan iyo hanjabaadahan hortale ayaa imaanaya iyadoo colaad lagu riiqmay ay ka soconayso gobolka Sool isla markaana ay Somaliland marman ka dambeysay si diyaarinayso weeraro isdaba jooga iyadoo oo haatan hadaladii iska hor imaanayay kaliya ku soo ururisay inay hanjabaado u bedesho waa 7 bishii Abriil waa Jimce naxariis iyo nabadgelyo ee bakorkiisa ayaa la soo baneeyay idukana si kastoo meel kasta noo maqlasaan barakooyinka bakorkiina ha noqday soo dhawaada taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya ayaa waxaa loo magacaabay shalay Jarnaal Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo Soomaalidu ay ku magacaawdo ama ku naanaysto taliya shub waxa uu ka mid yahay dadka barabashada sida weyn looga yaqaano isla markaana waxa uu leeyahay hadallo cadcad oo san ninnaba uga leexan uguna turin ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo shir gudoominayay shirki golaha wasiirada ee shalay ayaa lagu ansixiyay magacaabista taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo lagu tilmaamay inuu yahay khabiir aad u yaqaan maamulista hanaanka ciidamada gaar ahaan kan asluubta golaha wasiirada ayaa taliyaha cusub ciidanka asluubta Jarnaal Mahad Cabdiraxmaan oo markii labaad ku soo laabanaya xilkan ku amaanay aqoonta durugsan iyo khibradda dheer ee uu leeyahay arrimaha la tacaalista ciidamada iyo sidoo kale hanaanka wadista asluubta oo lagu sheegay taliye asluubeed kamid ah taliyaasha ugu wanaagsan wadanka hadda waa xildhibaan taasina waxay u muuqataa inuu ka tagi doono isla markaana uu dhiibi doono xildhibaannimada ama xilka xildhibaannimada Jarnaal Mahad ayaa horey u soo noqday taliyaha ciidanka booliiska koonfur galbeed ka hor inta aysan madaxweynaha hore Soomaaliya madaxweyne Farmaajo uusan u magacaabin taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya dhanka kalena wararka wacalaha dhinaca diblomaasiyadda dabashana qiimaha leh Azerbaijan waxa ay burisay isla markaana wadankeeda ka caarisay 4 diblomaasi oo u dhashay dalka isku qirta yihiin ee Iran Baku waxa ay sheegtay in aan 4 xubnood ay yihiin persona non grata taasoo ka dhigan inaan wadanka laga rabin isla markaana laga mamnuucay goorsi horeysa ayay u yeedheen safiirka wadankaasi u jooga wadanka Iran leeyahay Abbas Musafi kaasoo ay weydiiyeen su'aalo adag oo ku saabsan hanaanka jabinta shuruucda caalamiga ee 1961 ee loo yaqaan Vienna Convention ee xiriirka diblomaasiyadda ama diplomatic relations kaasoo dhigaya in aysan diblomaasiyiintu aysan farafareynin arrimaha gudaha wadamada ay martida ku yihiin iyo inaysan xadgudub ku sameynin waxaana qaraarkan uu noqonayaa kii ugu kulaa ee Baku ay u dirto Tehran labada dal ee Iran iyo dalkaasi Azerbaijan oo labaduba Shiica muslimiin ah ayaa barihii ugu dameeyay qir isku ah xaalkoodan wuxuu eegyahay mid mar ka dameysa sii darsanaya ama sii xumaanaya waxbana aysan ka soo naasacadayn wanaaga marka loo eego wararka kale waa weyn aan dib ugu noqonnay Somaliland mar kale waxa ay ku goodinaysaa inay sii wadi doonto colaadda ba'an ee gobolka Sool waxayna sheegtay in ay magaalada Laascaanood sifeed doonto digniinahan iyo hanjabaadahan hortale ayaa imaanaya iyadoo colaad lagu riiqmay ay ka soconayso gobolka Sool isla markaana ay Somaliland marman ka dambeysay si diyaarinayso weeraro isdaba jooga iyadoo oo haatan hadaladii iska hor imaanayay kaliya ku soo ururisay inay hanjabaado u bedesho waaga horena waxay sheegi jirtay inay halkaas ka jirto xabad joojin marka qaarkood waxay jirtay in la soo weeraro laakiin si haatan wixii oo dhan ayaa kala cadaaday waxaana soo baxday si rasmi ah wajiga dhabta ee dagaalka in ay Somaliland isku dayayso inay marka dambayso ay weeraro gaadma oo ku dhufo ka dhaqaaqa ay ku kiciso jida colaad xukuumadda maamulka Somaliland ayaa sheegtay inay aaminsantahay in colaadda Laascaanood lagu dhameeyo wada hadal hadana isla qoraalkaas oo u ekaa mid isburinaya iyagoo sidoo kalena sheegay in golaha wasiiradu ay ugu horeyn hambaryo u direen waxay ugu yeedheen ciidanka qalabka sida oo la jeeda maleeshiyaadka ka dagaalamaya Laascaanood ee dagaalada bahalnimada ah agagaarka Sool ka wada kuwaas oo iska soo duuba muuqaalo ay ku dhibaateynayaan maxaabiis sidoo kalena geysanaya dhibaatooyin dhinaca bini'aadanimada ka geystay Laascaanood burburiyeen kaabayaashii dhaqaalaha iyo guryihii dadka shacabka ay deganayeen waxay sheegeen in golahu uu Puntland ku eedeynayo in ay wado dagaal ay ku doonayso inay xuduud qabiileed kaga samaysato deegaanka gobolka Sool oo si hadalka u dhigeen iyaga oo sheegay in ay jirto xuduud qarameed Soomaaliya ma balahaba xuduud qarameed hal xuduud bay Soomaaliya u calaamadsan halka xuduud ee Soomaaliya oo dhan dawladda Soomaaliya u calaamadsan waa Talawiya Caddo oo ay Djibouti raali ka tahay laakiinse Soomaaliya xuduud kale oo ka jirta ma jirto inta badan dadku waxay u degan yihiin sidaas ay sheegayaan iyagu way qaab qabiil ayaa loo degan yahay meel loo degan way jiraan dabcan bayaanka ayaa waxa lagu sheegay in xukuumadda Somaliland iyo shacabka reer Laascaanood ay iska heshiid doonaan waa marka ay dabcan dhameeyaan miyaa inta ka hadha ayaa la heshii doonaa baa laga wadaa laakiin waxay sheegeen in ay sifeeyad doonaan goluhu wuxuu isdul taagay muhiimadda ay leedahay in Laascaanood laga sifeeyo ciidamada Puntland iyo kooxaha argixisada ay ciidamada dagaalka kula jira si loo sugo xuduudaha dalka ayaa leeyahay dalka waxa loola jeedaa ama ay ula jeedaan maamulka Somaliland oo iyagu dal isugu yeedha ugu dambeyntii goluhu wuxuu sheegay in Somaliland ay markastaba diyaar u tahay arrinta Laascaanood lagu soo dabaalo nabadgelyo iyo xabad joojin waa qoraal kaliya oo ay ku wada xusuntahay hajabaad iyo dagaalo la qaadayo iyo sidoo kale arrimo wada hadal ah waana waxyaalaha muujiya dhibaatooyinka dadka si u ragaaday waxa kale oo meesha ka muuqday in hambaliyada loo diray ciidamada maamulka Somaliland iyagu deegaanka ee dagaalka xun iyo falxumeyn ka geysanaya Sool
in iyadoo mid kale muujinayso dareen kale oo ah inaan loo jixin masiibada halkaasi ka socota iyo dhibaatooyinka loo geysta dadka la xasuuqay oo macnaheedu yahay in lagu hambaliyay haddaba taasoo jirta ayaa weli waxaa iyaguna jira dad deegaanka ah oo mar ka dambaysa ka soo qancaya maamulka Somaliland Maxamed Deeq Maxamuud Cabdi oo ahaa isaguna nin korjooga u ahaa ciidamo maleeshiyada oo duleedka Buuhoodle ku sugnaa tuulo la yiraahdo Carweyn ayaa ku dhawaaqay inuu ku biirayo xogaga wax iska caabinta ee deegaankooda difaacaya SSC muddo dheer oo halkaasi laga sugayay in uu soo galo anigoo ahaa gaashaanle dhexe Maxamed Deeq Maxamuud Cabdi ahna ayuu yiri taliyaha guutada 95aad ayuu sheegtay ciidanka Somaliland Carweyn waxaan halkan ku cadeynayaa in aan iska casilay xilkii aan u hayay ayuu yiri Somaliland isagoo waliba ugu yeeray ciidan qaran isla markaana wuxuu sheegay inuu la fikir yahay bulshada SSC Maxamed oo warbaahinta Buuhoodle ee maxalliga la hadlay asaas sheegay wuxuu intaas ku daray in xasilaadiisu ay ku kaliftay kadib markii uu arkay tacadiyada uu sheegay in maleeshiyaadka Soomaaliya ay ka tirsan ay geysteen bulshada gobolka uu ka soo jeedo wuxuuna sheegay in uu shacabkiisa daafacay qaar kamid ah odayaasha dhaqanka ee deegaankiisa ayaa markaas Maxamed ku bogaadiyay go'aanka uu qaatay iyagoo sheegay in dadkiisa uu u damqaday sida uu hadalka u dhigay isla markaana ay soo dhaweynayaan garaadada iyo siyaasiyiin kale ee reer Sool ayaa marar kala duwan ciidamada maamulka Somaliland waxa ay ku tilmaameen inay yihiin maleeshiyaad markaasi fadqalalo iyo dagaallo ba'an oo isarsafayna halkaasi ee ka geysanaya ama ka wada sidoo kale waxay leeyahay warbixin kale oo ku saabsan dawladda Soomaaliya lagu eedeynaya iyaduna inay xaqirayso markaan ay qarisay dambiyada dagaal halkaasi ka soconaya iyo dunuubta waaweyn halkaasi ka dhacaya arintaasi maxaa ka jira maxaa ka runa waxaanu eegi doonaa warbixin arintaas ku saabsan yaa idii haya oo idila socodsi doonee dhanka kale aan fiirino dhacdooyinka inta badan loo yaqaan dhibaatooyinka ka dhaxdhaca dadka tusaalahan dhacdooyinka guryaha ka dhaca waa kuwa naxdin leh mararka qaar kood waxaad moodaysaa dad badan waxaysan ogeyn dhibaatooyin dhinaca caafimaadka oo maskaxiyan oo dadka qaar kood haysata taasi waxa ay dhalisaa in ay dilal ay dhacaan dhawaan waxa ay sheegay in isku tagay Imaaraadka Carabta ku dilay laba caruur iyo xaaskiisii oo intuu ka soo qubay dabaq dheer ka soo tuuray oo saddexdii qof dilay isagana isdilay waxaana loo maleynayay dhibaatooyinka soo tahay dhibaatooyinka dhinaca dhimirka haatanna dalka Ingiriiska dood ka taagneed cidda dishay gabadh markaasi uur lahayd oo xaamilo ahayd ayaa soo shacabxaysa ninkeeda ayaa lagu ogaaday in uu dilay gabadhaas oo loo jiray Foosiya Jafeed oo 31 jir ah saygeeda loo jiray Kashiif Anwar oo 29 jir ahaa ayaa bishii September ee sanadkii 2021 ay isku raaceen in ay meel gabiya fuulaan kadibna gabiga ayuu ka taqantiqeeyay gabadhii iyadoo uur lena dhulka ay madaxa ku dhufatay ayadoo naf daba yar ku jirta ayaa waaxda gargaarku soo gaadhay isla markaana waxa kaliya oo ay ku tiraabtay in qofka dilay ee meesha ka soo tuuray uu yahay ninkeygii ayaa iga soo riday ayay tiri gabiga oo markaasi uu ekaa mid aad u dheeraa oo ay ka soo dhacday gabadha konton cagood ama konton feet ayuu gabigu ahaa uu gabadha ka soo tuuray ninkaasi oo deegaanka loo yaqaan Edinburgh ee aaga loo dalxiis tago ku yaala dalka Ingiriiska haatan dambiga ayaa lagu helay 20 sanadoodna waa lagu xukumay waxa weeye arrimaha dhacooyinka aad ka foosha xun ee marar badan ay geystaan dadka ayagu manxayaasha ah ee dhibaatada xooggan u geysta dabcan dadkooda ama dadka xanuunsanaya way maskaxiyanka dabcanna waxyaalaha ilaahay laga hoosgalo tan oo kale mararka qaarkood way dhacdaa marka waxaan rajeynayaa waxaan arkaa dadka Soomaalida mararka qaarkood marar bay ka dhaxdhacdaa laakiin aad baa loo qayliyaa oo maartay waxaad arkaysaa iyadoo ragga dumarka dila ama naag baasas kale gabar baasas kale sameynaysa waxa loo yaqaan naagaha dumarka dila arrimahan waa masiibooyin dhaca waxaana keena xanuunada dhimirka aba keena waxaad arkaysaa waxyaalaha la yaab kale waxaad arkaysaa qofka hadda inay qaadato hadda xukunka 20 sanadood hadda lagu xukumay oo 2 sanadood kadib la xukumay ninkan waxay muujinaysaa dawladnimada meesha ka jirta ninka waa la baaray maskaxdiisa la baaray dhimirka miyaa kiis dambi ma wuxuu galay si kasma hadduu xitaa dhimirka yahay intee buu gaarsiisan yahay miski celi kariyay wax walba la baaray taasaana keenta inuu dheeraado qaybta dabashana qiimaha leh afraad ee wararka wacalaha dhinaca dunaasiyada